qayb ka mid ah noloshiisa. magacaygu saddexaan waa xasan xaaji xanafi xaaji cabdisalaan. taariikhdeedii anigu sida cad waxaan ku dhashay magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya. waxaan ku soo barbaaray isla magaalada muqdisho. dadku goboladu tagtago marka laga reebo inta yar oo hawshii nimankaas kolley shabaabka laaya aan la waday oo aan gobolada soomaaliya dhinacaan u aadayay marka laga reebo inta kale waxaan ahay nin reer muqdisho ah. muqdisho ku wax bartay dugsigii hoose dhexe muqdisho ku dhamaystay sare muqdisho ku dhamaystay jaamacad ka mid ah jaamacadaha soomaaliya waxaan ku yaala garaan muqdisho ka wax bartay. sanadii 2003 dhamaadka bilowgeedii ayaa waxaan ku biiray raadiyo muqdisho codka shacabka oo markaas uu maamulayay injineer xuseen maxamed ciidiid. dabadeeto 2 bilood kadib waxaan ku biiray idaacatu quraan kariim ama IQK idaacada quraan kariimka dr sheekhdaan maxamed geelle oo gudoomiye ka ahaa milkiyadeedana lahaa. intaas markaan ku biiray idaacadu ilaa 2006 ama 7 ay raahdeen waxaan la shaqeynayay warbaahinta IQK anigoo isla dhinaca kale ka waday hawsha ah la shaqeynta nimankaas. waxaan anigu aaminsanaa oo ahaa in shaqadeedii aan wato xilliyada shaqadu aan ka madax banaanahay oo aan shaqada isu soconina in aan iyagii aado ayaan isku wadi jiray labada shaqo maadaama jumcada kale idaacada quraanka waxay aad min laga shaqeyn jiray marka laga reebo barnaamij aan ka lahaa oo jumcada nasashada jumcada la dhigi jiray oo soo gali jiray fiidkii hal saac 2 saacna ka bixi jiray marka laga reebo inta kale jumca laga shaqeyn jumcadii xaggaan aad jiray maalmaha kale reporter aan ku bilaabo shaqadii inta markaa warkayga keensado ayagaan aadi jiray sida ayaa ku isku shaqeyn jiray labada dhinac.